yahay waxa uu leeyahay waxa aan qabaa gabadhaasi waxa ay saaxiib la tahay dad aan wanaagsanayn oo rag iyo dumar bale ayay asxaab la tahay ayuu leeyahay marar badan ayaan uga digo waxaan ku iri walaal nagadaa dadkan aan wanaagsanayn ee aad xiriirka leedihiin laakiin way ka dhaga adkaysatay ayuu leeyahay aniguna ma doonayo in sumcaddaydu ay halawdo ama la arko xaaskayga oo la socota dad ka hooseeya ama aan u qalmin dhinaca diinta dadka ay la socotahay dad xijaaban maahan waa dad mararka qaar laga yaabo inay xataa balwada isticmaalaan aniguna xaaskayga dhibaato kuba ogi laakiin jidka ay ku socoto ayaa ah jid aan wanaagsanayn sida ii muuqataa taladii aan u bandhigana way diiday inay qaadato maxaad igula talinaysaa ayuu leeyahay sheikhuna alfaadil falyatafadal mashkuuran wama'juura alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah ilaahi subxaanahu jala wacalaa gabadhaasi muslimadda ah ha noogu hagaajiyo ama ha noo baro ama ha noogu hanuuniyo asxaab wanaagsan oo ku hanuuniya fartana ugu fiiqa tale iyo tusaalena ku siiya waddada toosan iyo dariiqa wanaagsan xaas baan qabaa saaxiibbo xunxun bay leedahay oo rag iyo dumarba ah mushkiladda ugu weyn haddee dhibaatadu way kala weyn tahaye asxaab dumara bay leedahay waxaa weeye waxaa ka xoog badan waxay leedahay asxaab xunxun oo rag ah taasi waa caynulfasaad asagoo fasaadku uu darajaad yahay oo saaxiibka xun in laga fogaada ah saaxiibka xun reerkuu dumiyaa saaxiibka xun xantuu dadka baraa saaxiibka xun salaad la'aan buu baraa saaxiibka xun tuugannimuu ku baraa dhafar habeennimuu ku baraa muusigaduu ku baraa waxaa weeye xafladaha xunxun buu ku baraa shiishad buu ku baraa qaad iyo sigaar buu ku baraa goor xun socod buu ku baraa waxaa weeye xaaraan cun ayuu ku baraa aakhara seeg buu leeyahay adduunyada dayac awlaad buu leeyahay dayac reereed buu leeyahay cuquubo waalid buu leeyahay cuquubo ninkuu qaba buu leeyahay saaxiibka xun waa adduunye waa iyo aakhara waa sumcad xumo ayuu leeyahay farta ayaa lagugu fiiqayaa colaad buu leeyahay uu colaad qofku u qaado dadka wanaagsan ee ahlu diinka ah ahlu dacwada ah culummada iyo masaajidada ayuu qofka colaad u qaadaa markuu saaxiibka xun khayrka inuu maqlo ma doonayo inuu muxaadaraadka dhegaysta ma doonayo saaxiibka xunay horta fasahaadoo dhan baa iskugu imaada waana miduu allah subxaanahu wa tacaala oo qur'aanka nooga digay dadka adduunyada saaxiibada ku ah hal qolo laba unbaa badbaadaysaa laba qof unbaa badbaadi qaala tacaala alakhillaa'u yowmaidin bacduhum libacdin cadow ila almuttaqiin asxaabta saaxiibada adduunyada waxaa weeyaan adduunyada saaxiibo ku ah aakhare markay tagaan acdaabay isku noqon mid walba midka kaluu ka beri noqon ilaa kuwa ilaahay diintiisa iyo laa ilaaha ila allah iyo kelimatu tawxiid kuwa ku walaaloobay ma ahane saaxiibka xun khatarta uu leeyahay wa qaala arasuulu yaa rab ina qowmi ittakhaduu hada alqur'aana mahjuura waxaan rabaa aayaddii kaloo dhahaysay allah subxaanahu wa tacaala hebel maxaan saaxiib oga dhigtay allah subxaanahu wa tacaala wakadalika axaadiisa nabiga sala allahu alayhi wasalam mathalu ljaliisi الصaalixi wa jaliisi الsuu'i ka xaamil ilmiski wa naafki ilkiir saaxiibka xun ima inuu dharka kaa gubo waa ima inuu sanboor kugu kiciyo oo aad hindhiso ku waalato oo macnaheedu ay tahay biictibaari maa ya-uul waxa uu ku dambayn doono oo ah kulayl iyo cadaab iyo ciqaab saaxiibka xun waa midka abu taalib yacni tawxiidka iyo tawbada weydaariyey ayadoo nebi moxamed dul taagan yahay sala allahu calayh wasalam uu leeyahay adeerow qul laa ilaaha ila allah kelimadaa ku dhawaaq laakiin sanaadiidu qoraysh oo ag fadhiday dhinac fadhiday ayaa waxay dhaheen adigoo maanta da'dana oo ku ciroobay maxaa la yidhahdaa calaa diini cabdilmutalib miyaad maanta aad wiilkan yar ee agoonka ah aad naga raacaysaa waa midka weydaariyey kelimatu tawxiid iyo maxaa la yidhahdaa attawba saaxiibka xun khatar buu leeyahay gabadha waxaan ku waalinayaa saaxiibkaaga wanaaji oo saaxiibkaaga saaxiib wanaagsan oo alla ka baqaya laa tusaaxib ilaa mu'mina xadiidka nabiga calayhi salatu wasalaam qof aan mu'minana la saaxiibin raashinkaaga yuusan cunin ilaa qof aan mu'min ahayn ayuu nebi moxamed ku leeyahay sala allahu calayhi wasalama qur'aanka ilaahay wuxuu noogu sheegay qolo dhihi doontaa yacni adduunyada nin baa jiri jiray
oo saaxiib xun ahaa oo aakhiradayda iyo adduunyadaydaba yacni meel xun raba inuu iga tuuro khaasatan aakhiradayda talow xagee buu ku jiraa oo ma jannuu ku jira mise naar buu ku jira bal kaalaya ila soo fiiriya fii suurati asaafaat ayuu alla nooga sheekeeyey subxaanahu wa tacaala hal antum muطalicuun faطalaca fara'aahu fii sawaa'i aljaxiim qaala tallahi in kidta laturdiin walowlaa nicmatu rabbii lakuntu min almuxdariin wallahi waad ku sigatay inaad meeshaad ku jirto aad igu tuurto oo sabab igu noqoto laakiin lowlaa raxmadda ilaahay iyo naxariista allah hadduuse alle i huwiyeen oo uusan mare iiga dhigeen oo ilaahay isibqe iyo riinji iiga dhigeen ousan igu riinjiyeeyeen waxaa weeyaan sibqat allah haa waman axsanu min allahi sibqa wa naxnu lahu caabiduun walle meesha ayaan ku jiri lahaa gabadha marka waxaan leehay hadday rag noqdaanna ka daran rag saaxiibo xunxun ah markaad la saaxiibto maxaad u malaynaysaa saa'ilku siduu u soo qoray su-aashay walaalaha ugu soo gudbiyey hadday tahay oo uusan shaki meesha aan ku jirin hadduu maxaa la yidhaha iska dhaadhicinin isagana waxaan leeyahay waxaa laga yaabaa arrintu inay halkaa gaarsiisnayn ee masayr inuu kugu dhacay ayaa suurtagala oo ragga qaar baa cudurrada ku dhaca oo gabadhii ayadoo xagga u socota hadduu arko khalaas buufis buu qaadaa adiguna cudurka ayuusan kugu dhicin la fadhiisa xaaskaaga wehel u noqo xaaskaaga saaxiib u noqo xaaskaaga maxay u raadinaysaa xaaskaaga saaxiib adiga saaxiib wanaagsan u noqo saaxiibkaa waxay ka helaysay sheekaday ka helaysay iyo qosolkay ka helaysay dhoolla cadayntay ka helaysay iyo naxariistay ka helaysay maaweeladay ka helaysay ciyaartii ay ka helaysay wax dhegaysiga ay ka helaysay adiga in lagaa helo kaama tegayso biidnillahi tabaaraka wa tacaala gabadhay iimaansan reerkaaga iimaansan ninkaaga maqal ninkaaga zawjkaaga maqal dan bay ku tahay gurigaagay dan u tahay muslimiintay dan u tahay carruurtaaday dan u tahay abubakar baa soo saari cumar baa soo saari radiyallahu tacaala canhu ajmaciin imaamu shaafici axmed binu xambal baa soo saari adduunyadana waad ku liibaani way ku anfacayaan aakharana waxaa haddaad ka hormarto way ku anfacayaan oo waxa weye way kuu soo ducaynayaan aakharana su-aasha maalinta qiyaama la dhihi doono waqifuuhum innahum mas'uuluun ayaad ka badbaadi doontaa adduunyadana marwo sharaf leh aad u wanaagsan marti iyo mudane soo dhowaysa la xurmeeyo oo la qadariyo oo markii halkaa marayso loo istaago oo waddada loo banneeyo farta lagu fiiqo oo lagu daydo ayaad noqonaysaa wa ilaa hadday taa noqon weydo khatarteeday soo gelaysaa wallahu aclam ما شاء الله جزاك الله خير.